Bishii Diseembar dhammaadkeedii 2021, diyaaradda Qatar Airways ayaa ka soo baxday waddanka Uganda oo ku socotay dalka Kanada ayaa ka degtay dalka Kanada iyada oo ay geysay rakaab dheeri ah. Diyaaraddaas ayaa waxaa ku dhex dhashay ilmo yar. Waxaa la yaab weyn ku noqotay Dictoressa Aisha Khatib oo ah dhakhtaradda ka soo jeeda waddanka Kanada ahna umulisada ilmaha yar. Dhakhtaraddan ayaa waxay tidhaahday, "Ma filaynin inaan ku dhex umulinayo diyaarad marayso hawada sare ee fiidkeeduna ah 35,000 oo fiid." Marka ilmaha yar lagu guuleystay inuu dhasho ayaa rakaabkii diyaaradda sacab iyo farxad laga dareemay. Xaaladda ilmaha iyo hooyada ayaa hadda aad u wanaagsan. Gabadha ku dhalatay diyaaradda dhexdeeda ayaa loo bixiyay umulisada magaceeda Aisha. Waa fursad in diyaarad lagu dhalo, waana hal 26 bilyanba. Haddaba daawade, adigu ma jeclaan lahayd inaad ku dhasho ama laguga dhalo diyaarad dhexdeeda? Farxadaadu heer intee le'eg ayay noqon lahayd? Fadlan daawade, hanaga baqaylin subscribe-ta iyo like-ta. Haddii aad nagu cusub tahay, subscribe-de. Haddii aad nala socotay, waad ku mahadsan tahay. Daawade, xaggaada haddii ay subscribe-ta kala fududahay, xagganaga aad bay qiimo noogu leedahay. Taageeradaadana aad bay noogu weyn tahay. Daawade, mahadsanidin.